Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in xukuumaddiisa aysan ka shaqayn doonin kala qaybinta Soomaaliya isagoona xoogagii TPLF ee burburay ku eedeeyay kala qaybinta wadamada Geeska Afrika. Xukuumadda uu taladeeda hayo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigreega kula dagaalamaya TPLF. Waxa uuna guushaasi ku tilmaamay mid dan u ah dhammaan wadamada Geeska Afrika. Warbixin lagu daabacay Project Syndicates ayuu ku sheegay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in TPLF ay qas ka wadeen dalalka Geeska Afrika isla markaana ay doonayeen inay kala qaybiyaan balse ay taasi soo afjareen. Siyaasadda TPLF waxa ay ahayd mid cayrin ah balse annaga dhankeena waxa aan ka shaqaynaynaa xasiloonida siyaasadda ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuusan ka shaqayn doonin xasilooni darrida Soomaaliya oo muddo 30 sano ah dhibaatooyin dhexda ugu jirta. Sidoo kale Abiy Ahmed ayaa sheegay in siyaasadaha xukunkiisa ay tahay in laga wada shaqeeyo xal u helidda duruufaha guud ee ka jira qaaradda Afrika.